wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in diyaarad ay ku dhacday meel duleedka ka ah degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Diyaaradan ayaa la sheegay inay tahay nuuca xamuulka qaada, balse lama cadeyn halka laga leeyahay, iyadoo sidoo kale arrintan ay si kulul uga hadleen maamulka gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, Cabdifataax Xaaji Cabdulle, oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay inay heleen xogta ku aadan diyaaradan oo gilinkii dambe ee shalay ku dhacday duleedka Walaweyn. Cabdifataax Xaaji Cabdulle ayaa intaas ku daray in maamulka degmada Walaweyn iyo booliiska degmaduba ay warbixino ka qaadanayeen saraakiisha ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykan ah oo ku sugan garoonka Balidogle. warar kale oo ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in diyaaradda goobta ay ku dhacday ay ka agdhow yihiin dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. arrintan ayaa waxaa sidoo kale cabsi ay ku abuurtay shacabka ku nool degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. maahan markii ugu horeysay oo diyaarad ay ku dhacdo gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana jiray dhowr jeer oo hore oo diyaarado ay ku soo dhaceen gobolka Shabeellaha Hoose, arrintaa oo siyaasiyiintu siyaabooyin kala duwan ay u fasireen. Yusuf Abubakar, Television Cable, Jowhar.